waxaynu u baahanay qaranka in hagardaamada laga ilaaliyo ninka bareeriya isagay jirtaa qolada inta dad moodaysa iyagay jirtaa laakiin maanta waxa la isugu tagayaa halka sharciyana waynu ka soo saaraynaa nidaamkaana waynu isugu tagaynaa qoladiina saxaafadana sharar baanu qaban doonaa waynu isugu imanaynaa dadka moral baa loo sameeyaa inaan moralka kaga kaajin waxa xunee la qorayaana idinka idin martaa saxaafadda adduunyadoo dhan waana mamnuuc xilliga qaranku noocaasi uu ku jiro in saxaafadiisu wax qarannimada ka soo horjeeda ay noqoto saxaafadda haddaad imika aragto waxa ku jira waxyaalo fara badanoo aan wanaagsanayn idinkaa jaani siinaya waxa aan wanaagsanayn idinkaa idin dhex maraan soo maaha dee waajibaadka saxaafadda waxa weeye waxaa la yidhaahdaa media is all about ethics miidiyaha saxaafaddu gebigeeduba waa hab ethicska waxa weeye waa waxa anshaxa wanaagsan leh saxaafaddeenu ma waxay ka bacmusharaynaysaa waxa anshaxa xun leh horta su-aashaa ma isweydiina yaa waxaa uga aamusaysaan ilaa annakaba idinka afan haddiise laydin weydiiyo dembiba qoladiinna saxaafaddii dhegaysta laba isku wadi kari mayno qaranka badbaadadiisa iyo qaranka dhibaatayntiisa laysku wadi kari maayo waa soo dadaasheen si fiican baa ilaa iyo habeenkii u shaqaynayseen si fiican baad u gudbinayseen laakiin waxa ku dhex jira in xun oo aan xagga cilmiga xagga akhlaaqiyaadka xagga siyaasadda xagga dhaqanka mid gaal iyo mid muslim midnaba ku wanaagsanayno ina wada dhex maraysa waxaan maanta shirkan kale caawa aan u qabanaynaa dhacdadii maanta dhacday sida ay bulshadu la socoto ama maanta laga warhayay dhacda ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa halkaasoo markii ay dhacdadu dhacday ay qaar ka mid ah warbaahintu tageen saxafiyiinta Soomaaliland ee ka hawlgala xarumaha warbaahineed kala duwan iyo kuwa ka hawlgala barahooda bulshadaba halkaas oo markii hawshaasi ay dhacday runtii ciidankii halkaa joogay ay xidhxidheen saxafiyiin tiradoodu ay gaadhaysay ilaa imika intaanu ogaanay ilaa 15 saxafi oo meelo kala duwan ku xidhan oo ay ku jireen laba hablood arrintaasoo markii hawshaasi dhacdada laga soo dareeray aanu kala macaamilaan aanu la hadalnay mas'uuliyiinta amniga gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska oo aanu arrintaasi aanu kala xaalay runtiina oo aad iyo aad uga mahad celinayno in markiiba hablihii gaar ahaanna Sagal Mustafa oo VOA ka hawlgasha markiiba oo isku jirtay saldhigga dhexe iyo Naciimaba la sii daayay oo iyaga aan shuruudna lagu xidho waxba lagu xidho markii uu taliyo naga aqbalay wili labada hablood oo sii deeyna intii kale ee soo hadhay oo saldhigyo kala duwan ku xidhan waxa anaga noo suurta gashay ka soo jaahan inaanu iyadoo xilli dambe ay ahayd aanu tagno saldhigga dhexe oo halkii ugu weynaa ayaan islahayn saxafiyiintu way ku xidhan yihiin laakiin aan ugu tagnay Sagal Mustafa iyo 5 saxafi oo kale oo ku xidhan oo halkaasi joogay Sagal markii la sii daayay 5 saxafi oo kale ku xidhan waxa kale oo aanu booqanay xarunta Home Cable TV oo runtii markii hawshaasi dhacday ka bacdi ayadana ciidan galeen oo halkaasi qalab yaalay oo 2 kameradood iyo ay soo qaateen saxafiyiin iyo hawlwadana halka markaa ku shaqeynayna la soo xidhay iyagana tiradoodu ay dhan tahay 6 saxafi iyo saxafi kale oo Home Cable ka tirsan isagana banaanka laga xidhay guud ahaan xarunta warbaahineed 7 saxafi baa ka xidhan iyo 4 kale ee kula jira saldhigga dhexe iyo iyaguna ilaa 3 saxafi oo imika aanan ogaanin ilaa xilligan aynu hadlayno meel ay ku xidhan yihiin laakiin aanu ka warqabno inay xidhan yihiin oo ay ka mid yihiin Axmed iyo ay ka mid yihiin Xasan Galayriyo marka dhacdada runtii maanta dhacday aad baan uga xunahay ka soo jaahan aad baan uga xunahay saxaafaddu duulaan kuma aha wadankeeda saxaafaddu dhibaato kuma hayso dalkeeda way u adeegtaa maalin iyo habeen waxay u soo jeedaan oo noognaho dhacdadii u dambeysay ee ka dhacday suuqi waaheen ay ahaayeen dadkii naftooda u horay ee soo tabinayay sidaasaanay marnaba aanay duulaan iyo dhibaato aanay ugu ahayn inay wax wanaagsan ay ka tabiyaan mooyaane laakiin arrintaasi oo si kadisa hawshii halkaa ka dhacday oo xilli iska kadisa iyo xilli kulayla oo ciidamadii laftoodu ay markaas u yimaadeen ay hawshaasi dhacday anagu wixii dhinacayaga saxaafad ahaan aad iyo aad baanu uga xunahay
wixii nagu dhacayna aad baan uga xunnahay saxaafadda Somaliland dastuurkeena ayaa dhigaysa inay xor tahay oo ay dhacdooyinka tibin karto haddana dhacdooyinkii waxaa loo eegayaa anshaxii saxaafnimo iyo wixii moralka iyo akhlaaqiyadka u wanaagsanaa ay tibinayeen oo ahayd in la hubiyo dhacdo kasta oo dhacda marka ay dhacdo in warka la hubiyo marka anagu waan ku dul taaganahay waan jecelnahay inaanu dhacdooyinka noocaasiya aanu saa u shaandhayno bulshada la wadaagno wax hufan oo tafatiran arrintan iminka caawa ahaan habeenimo nooga dhacday oo markii sidii hawshan ugu jirnay xilli dambe noqotayna waanu ka ballanay taliyaha iyo mas'uuliyiinta kale ee amnigaba in berri aanu ka sii anba qaadno halka oo laga wada hadlo sidii saxafiyiinta tiradooda iyo loo sugi lahaa iyo xarumahaba sidii aan uga hawlgali lahayn hawshaas sidii aan isaga dhamayn lahayn sidaas aanan anagu saxaafad ahaan aanan marnaba diyaar uga ahayn inaan wax wanaagsan tarno mooyaane inaan wax xun tarno waddankeega oo aan u adeegno waynu ognahay xaaladaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiintu iyo xarumaha warbaahintuba laakiin isaseega maadaama shaqo lagu jiro oo warbaahintuna shaqo culus oo culayskeeda leh oo xaqiijin iyo dabagal iyo war ururin oo war ay raadinayso waa laga yaabaa inay dadka qaar dhibsadaan ama qaabka u tabinayaan ay dhibsadaan ama xaqiiqanimadeeda ay dhibsadaan marka anaguna waanu wixii dhinac ayaga ah in mar walba aanu saxno oo hagaajinada diyaar baan u nahay anaga wixii la naga galo khalad ahna runtii in la naga xaal mariyo ayaan diyaar uga fadhinaa marka hawsha maanta sidaas oo dhacday insha Allah berri ayaanu jecelnahay in aynu hawsha ka sii anba qaadno inta aynu ognahay saxafiyiinta qaar baa ayaa dhaawac qaba oo nabar ku dhaceen oo qaarkood iminka aan duweyn u geynay oo aan ka soo baxnay marka wixii dhibaato dhinac ayaga dhacdana berri markaanu qiimeeyno haday tahay xarun warbaahineed haday tahay saxaafadaba waxaanu kala xaalaynaa hay'adaha amniga iyo mas'uuliyiinta amniga ee waddanka arrintaas oo qaabilsan berri baanan kulley dhacdada rasmiga ah iyo tirada guudba aynu xaqiijin doonaa intaasaynu maanta isugu yeernay aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhacdo aad u foolxun runtii oo waan ka xumahay in la xidhxidho saxaafadda iyo in la caburiyo iyo in loo cagajuuleeyaba aad iyo aad baan runtii uga xumahay waxa weeye arrin qaldan waa arrin sharciga baalmarsan waa arrin u muuqata carjuuq dhaha iyo maxaa wax loo sheegayaa warbaahintuna waxa weeye iyo xorriyatul qowlkuna waa wax uu damaanad qaaday dastuurku uu damaanad qaaday muwaadiniinta iyo dadka xirfadan leh warbaahintaba waxa iyaduna siyaadaha in warbaahinta xarumaheedii sida Home Cable oo kale la leeyahay waa la weeraro wax laga soo qaaday wariye marka arrintaas waa arrin aad u foolxun runtii wali war rasmi ah lagama soo saarin mana doonayna ka hor dhacnay ilaan xog ka ogaano laakiin se dhacdadii waxa hadheeyay dhacdo kale oo aan ku talagal lahayn oo aynan inuu ku talagelin laakiin se laga yaabo xukuumaddu inay ku tala gashay oo wiigan gudaheedan maqlayado ay u hanjabayaan wasiirka daaqil uu ka hanjabay hanjabaad samaynayo iminkana waxaan arkayaa inuu xidhxidhay marka waxaan leenahay waan cambaaraynaynaa waa arrin qaldan waxay ka soo horjeedaa shuruucda dalka ka soo horjeedaa waxaan u muuqataa xukuumadda waqtigeeda dhamaanaya inay sharciga meel iska dabcan dareenkan dee xadhigaa muujinaya dhacdadaa muujinaysa iyo say xidhiir u leedahay ayaa muujinaysa waana caqli xumo iyo fikrad aad u qaldan hadday la kulmaan warbaahintu mucaaradka dadkay u adeegayaan bay ka mid yihiin institutionskii qarankay ka mid yihiin xaq bay u leeyihiin inay arkaan xaq bay u leeyihiin inay isweydaarsadaan xaq bay u leeyihiin wada shaqayntooda marka hadday xukuumaddu kasban kari weydo oo ay ka xanaaqdo ka masayrto maxay u arkeen oo ku ciqaabto maxaad hebel iyo hebel isula taagtay waa foolxumo mana la yaabayo dee madaxdii xisbiyada ay markii hore xidhxidheen oo inay xadgudub kaa sameeyaan oo ay warbaahinta iyo mas-uuliyiinta kale kala duwanba ku xadgudbaan waatu ay marar badan ku celceliyeen taliyihii ciidamada asluubta wasiirkii wasaaradda cadaaladda ayaa waxa ay warbaahinta gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliland ay si rasmi ah ula hadleen waxaanay sheegeen in haba yaraatee wararka kala duwan ee ku jira suuqa ee la buunbuuniyo aanay waxba ka jirin maanta oo taariikhda 13 bishii afraad 2022 ay tahay shaqaaqa yar oo shoobara ah baa waxay ka dhacday bologa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku jiraan dad ugu dhow 150 qof waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isku afgaran waayeen hal nin oo maxbuus ah oo u tiranayeen edeb darro in loo soo geliyo in kale ka bacdi qaar baa ka faa'iideystay buuqi dhaxiisa oo askartii dhagax ku tuurtuuray askartu way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso laakiin ma ay samaynin sidii ugu wanaagsanayd nin askariya oo Somaliland oo haya maxbuus ay walaala yihiin oo dambi u xiran oo ilaalinayay bay u galiyeen jeelkii uu ku jiray qolkii uu ku jiray
iminkana qol walba ninkii ku jiray baa ku jira wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan nin askarta dhaawacantay waa dhowr nin dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibidhka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay askartaas hase yeeshee askartu way karayeen inay xabas ku dhufsaan qofkii dhagaxa ku dhuftay ma ay yeelin waan ku bogaadinaya way ku talagal qof qura oo maxbuusa oy gacani gaadhay ma jirto askartiina 2 nin mooyaane dhaawac gaadhay yar laakiin intii kalena markii baa la soo daayey kuwa kalena in hadda ka imanaya isbitaalka ayaan ku rajo weynahay dadka buunbuuninayey ee ka sheekaynayey in ay wax dhaceen askar qoryo laga boobay waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeenta ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa in askari loogu talagalay inuu maxaabiistaha iyo layidha qorigii baa nin maxbuusi ka qaatay oo ku faltamay waa waxaanu rabno in sharcigu wixii uu leeyahay lanaga mariyo kana yeeli mayno cidna haddana xabsiga magaalada hargeysa wuu degan yahay wax dhiba oo ka taaganna ma jiro guud ahaan ummadda somalilan waxaan u sheegaynaa inay tahay nabadgelyo inuu jeelku nabad qabo inay maxaabiistu nabad qabto waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ciidamada asluubta taliyaha iyo taliye ku-xigeenka iyo taliyaha xabsiga iyo hogaamada iyo dhammaan ciidanka oo had iyo jeer marka shaqaaqada ay shaqaaqo yara dhacdo si midaysan oo ah gudashadii waajibaadkooda xaqa ahaa uga hortaga waxaan kaloo u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada kale ee qaranka ciidanka militariga iyo dhammaan mas-uuliyiinta uu jaranka ugu sarreeyo ciidanka booliska oo iyana si degdega iyo militariga oo dhan oo iyaguna markii shaqaaqadan la maqlay si degdega u soo gurmaday oo ciidankii walaalo saaxiibadood ahaa degdeg markaa ugu yimi guud ahaan waa nabadgelyo weeye ma jiro wax dhimashaa ma jiro waxyeelo maxaabiista loo geystay ma jiro maxaabiis ciidanka qoryo ka qaaday waxa nasiib darro ah bulshadeennii qayb ka mid ah haddii la yado waaheen baa gubatay inay dabdamiskii iyo ciidankii gurmadka ahaaba dhallinyaradii ka horeeyaan waxaa nasiib darro ah haddii la yado jeelkiiba wax ka jiraan inay bulshadeennii ciidankii iyo waajibaad gudan lahaa iyo dadkii shaqadaa lahaa ay ka soo horeeyaan waxaa nasiib darro ah in saxaafadeennii iyadoo aan hubanti la gaadhin inay markiiba uu warina ka baxo waxaan aada uga digaynaa bulshadana ka codsanaynaa waxyeelo waa dhici kartaa waaheenoo suuqi ugu weyna baa gubtay caalamku wax weyn baa ka dhaca in haddii shaqaaqa dhacdo oo ama dhakhtarka dhaawac la keeno oo baabuur dhaco waxaad arkaysaa in dhakhtarkii uu daweyn kara la yahay bukihii loogu talagalay oo ay markiiba bulshadii qaybi ka horeynayso waxaan uga digaynaa inaanay dhakhtarada xeryaha muxuu ahaa arrimaha dhaca baananka haddii wax dhacaan ama iskuullada ay wax ka dhacaan in loo daayo cidda hawshaa wax ka qaban karta